markale fid wanaagsan waa khamiis jimca ay soo galayso waana 28 Maars 2019 saaxiib u diyaar garow wararkaas oo dhan inaad maqashaan waxaan ahay Maxamed Abukar Dabaasho oo caab ah warkeeda cad akhrinaya waxaa hadda la tilmaamayaa in aad u korortay tirada dhimashada qaraxii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho iyo waliba inta dhaawacantay inta la xaqiijiyay ilaa 18 ruux ayaa ku geeriyootay 25 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii qarax loo adeegsaday gaari uu ka dhacay maqaaxi ku taala meel u dhow hotelka Weliye ee wadada Maka al-Mukarrama ee Muqdisho qaar kamid ah dadka ku dhaawacmay ayaa waxa la geeyay isbitaalada Muqdisho kuwaas oo qaarkoodna dhaawacyadooda ay ahaayeen kuwa halis ah oo isbitaalka ay ku geeriyoodeen waxa qaraxa kadib gurmad loo sameeyay dad badan oo ku sugnaa maqaaxida oo xiliga ka qadeynaya iyo kuwa wadada laamiga isticmaalayeen isbitaalada Muqdisho ee dhaawacyada la geeyay ayaa warbaahinta u sheegay in dadka la keenay isbitaalka ay ku jireen kuwa dhaawacyo culus qaba iyo kuwa fudud intaba waxaana sheegay in ay jireen dad qaba dhaawacyo culus oo goor dambe isbitaalka ku dhintay mid kamid ah qof goob jooga ayaa marka hore sharaxaya sida doornimadii maanta wax kaga dhaceen wadada Maka al-Mukarrama gaar ahaan meel u dhow hotelka Weliye halkaas oo maqaaxi ku taala lagu baakimay gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ku qarxay kadib maxaa dhacay magacayga saddex waa Saciid Muuse Aadan saad marka qarax u dhacay hotelka waxaan ku jiray waxaan deganaa Bilson Hotel qolka waxaan ku jiray sagaalaad qolka sagaalaad baan ku jiray waxaan hal mar ka war helay daaqada oo ugu soo duntay hal mar marka daaqada hal mar ugu soo duntay arkay marka ilaahay baa naga badbaadiyay dad badan baa ku dhintay waxa ay muuqanaya waxay ahaayeen hilib dad oo markii ugu horreysay arko hilib dad bay ahayd marka waxa laga argagaxa ka dhacay oo aad looga naxo dadka shacabka Soomaaliyeed intii ku dhimatay oo uga tacsiinaya inta dhaawacana ilaahay caafiyaan leeyahay inta kadib gaadiidka gurmadka degdega ah Aamin ambulance loo yaqaan ayaa ina qudhooda waxay saxaafada la wadaageen tirada dhaawacyada ah iyo waliba dhimashadaba inta dad halka ku dhintay goobta ay ka dad gurayeen aniga oo ka tirsan hay'adda darweynta hay'adda Aamin ambulance magaciisa Abduqaadir Cabdullaahi ruuxanti walaal qarax ka dhacay isgooska meeshan Weliye agteeda qarax ka dhacay goobtan ku soo gaartay hay'adda Aamin ambulance ka qaada meesha dhaawacyo dhan 16 qofood iyo 12 qofood oo dhimasho ah inta kale hadda oo wixii kale oo dheeraad ah soo baxay insha Allah shaqada oo ku wada jirnaa waan isoo gudbin doonaa Abdullaahi 12 qofood oo meedka inta hadda tirin in kalena waa dadkooda qaateen laga yaabaa wixii kale oo dhaawac dheeraad ah waan soo socodsiisana insha Allah gaariga ayaa la dhigay banaanka hore maqaaxid lagu qadiyo oo waa maqaaxi lagu magacaabo Filson sida dad goob joogyaal ay noo sheegeen waxaana xilliga kadib la arkayay dad badan oo gudaha maqaaxida ka qadeynaya oo dhaawacyo culus soo gaareen kubana halka nafsadooda ay ku waayeen laamaha ammaanka ee dawladda Soomaaliya wali faahfaahin rasmi ah kama bixin qaraxidan waxaana saraakiisha qaar ay sheegeen in baaris ay wadaan caasimada Soomaaliya ee Muqdisho toddobaadkan kaliya waxaa ka dhacay in ka badan 7 qarax oo ay waxyeelo ka soo gaareen dad shacab ah kuwaas oo u badan gaadiid laga soo buuxiyo waxyaabaha qarxa iyo waliba gaadiidka yararka ee qarxida lagu xiro ayna ku qarxa wadooyinka caasimada ammaanka Muqdisho ayaa hadda u muuqda mid faraha ka sii baxaya dawladuna lagama hayo jawaabo ku aadan falcelinta amni darrada ka jirta caasimada Sheekh Yuusuf Cali Caynte ayaa asna ku dhaawacmay qaraxii maanta ka dhacay wadada Maka al-Mukarrama Sheekh Yuusuf Cali Caynte oo kamid ah culimada Soomaaliyeed ayaa dhaawac ka soo gaaray qaraxii duhurnimadii maanta ka dhacay wadada Maka al-Mukarrama Sheekh Yuusuf oo aabaha dhalay wasiirkii hore ee qorsheynta qaranka Cabdiraxmaan Caynte ayaa la sheegay in dhaawaciisu uu yahay mid fudud wararka ayaa sheegaya in xilliga qaraxa uu dhacayay Sheekh Yuusuf uu marayay wadada isla markaana uu watay gaarigiisa dhaawaciisa ayaa la sheegay in ay tahay isha midig oo dhaawac uu ka soo gaaray waxaana la dhigay isbitaalka Digfer halkaas oo xaaladiisa hadda lagu baxnaaninayo qaraxa waxa uu ku dhaawacmay qaraxii maanta ka dhacay meel dhow maqaaxi ku taala hotelka Weliye ee Maka al-Mukarrama ama wadada caanka ee Maka al-Mukarrama Puntland oo galmudug oo qudheedo ka soo saartay war saxaafadeed wada hadaladii la isku jiba murxay oo waqti badan qaatay oo dhaxmaray wasiirka arrimaha gudaha iyo madaxda sare galmudug ee maqli doonta laakiin waxaan ka hormarinayaa
dowladda Soomaaliya waxay midowga Yurub kala hadashay mashaariicda ay ka fulinayaan maamul goboleedyada dalka Soomaaliya. Cali Xasan Cali ayaa warkana faafahinaya. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Cabdi Maxamuud Sabri ayaa waxa uu maanta kulan la qaatay safiirada midowga Yurub ee Soomaaliya. Cabdi Maxamuud Sabri wasiirka arrimaha gudaha oo la hadlay warbaahinta markii uu kulanka soo ilaalay kadib ayaa waxa uu sheegay inay kala hadleen safiirada midowga Yurub sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen hirgelinta siyaasadda dib u heshiisiinta oo ay hore u soo ansixiyeen golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya. sidoo kale waxa uu sheegay inay kala hadleen safiirada beesha caalamka sidii loo dadejin lahaa mashaariicda horumarineed oo ay midowga Yurub ka fuliyaan maamul goboleedyada dalka gaar ahaan kuwa soo koraya. waxa uu intaa ku daray wasiirka in midowga Yurub ay ballan qaadeen inay qayb lixaad ka qaadanayaan hirgelinta arrimahaasi. waxaan halkaan kula kulanay safiirada midowga Yurub oo aan u ballansanayn in siyaasadii dib u heshiinta qaran oo soo dhamaatay golaha wasiiraduna ansixiyeen aadna loogu bogaadiyay tiimkii ka shaqeynaya hawshaas iyo wasaaradda iyo xukuumadda ee wadankaba dhammaantiis inay nala arkaan siyaasadaas soo gabagabowday hirgelinteeda inaan isla aragno iyaguna ay ballan qaadeen inay sidii ay qayb weyn uga qaateen samayntii siyaasadda inay qayb lixaad ka qaataan hirgelinteeda. marka arrimahaasaan ka hadalnay safiirada waanan isla afgaranay runtii biri ayaa loo ballamay in loo daadego arrimaheeda farsamo iyo dejinta qorshaha lagu hirgelin lahaa. wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee xukuumadda Soomaaliya muddooyinkii dambe waday kulamo kala duwan oo ay la qaadanaysay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo siyaasiyiinta kuwa ay tashi kala yeelanayso sida lagu hirgelin karo siyaasadda dib u heshiisiinta oo ay wado wasaaradda. waa hagaag wali warkii fiidnimo ya saaxiibayaal aad maqlaysaan galmudug aan eegno markan maamulka galmudug war-saxaafadeed ay ka soo saareen wada hadaladii waqtiga badan qaatay ee dhaxmaray wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya oo dhusmareeb gaaray xilli hore intuusan ka soo laaban iyo waliba madaxda galmudug ugu horeeyay madaxweynaha iyo waliba madaxa xukuumadda maamulkaasi. dowlad goboleedka galmudug ayaa war-saxaafadeed waxay ka soo saareen wada hadaladii magaalada dhusmareeb ku dhaxmaray wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya iyo waliba madaxda maamulkaasi galmudug kuwaas oo siyaabo kala duwan looga hadlayay wada hadalada labada dhinac. war-saxaafadeedka ka soo baxay madaxtooyada galmudug ee magaalada dhusmareeb ayaa waxaa lagu soo bandhigay nuxurka wada hadalada dhusmareeb iyo shuruudaha ay ku xirnaa wada shaqeyn dhexmarta dowladda Soomaaliya iyo waliba maamulka galmudug. sidoo kalena dowlad goboleedka galmudug waxa ay dalbatay in ka hor wada hadalada dhexmaray dowladda Soomaaliya in xayiraada laga qaado kaalmada dhanka miisaaniyadda ee galmudug lagu soo rogay iyo waliba miisaaniyadda maamulka ay ku shaqeeyaan iyo mashaariicda horumarineed ee deegaanada galmudug ay sheegeen in dowladdu ay xayiraad ku soo rogtay. agaasimaha warfaafinta madaxtooyada galmudug ee ninka la yiraahdo Jaamac Barre ayaa sharaxaya nuxurka go'aanadii labada dhinac ay isku mari waayeen. galmudug waxay muujisay in wada hadallada la isugu iman karo haddii dowladda federaalka Soomaaliya ay tixgeliso dastuurka galmudug isla markaana ay gacmaha kala laabato faragelinta qaawan oo ay ku hayso jiritaanka hay'adaha dastuuriga ah ee galmudug sida mudaxileedka madaxweynaha iyo sidoo kale golaha baarlamaanka. sidoo kalena dowladda goboleedka galmudug waxay dalbatay in furitaanka wada hadallada ka hor dowladda federaalka Soomaaliya ay xayiraada ka qaado kaalmadii miisaaniyadeed ee galmudug ay ku lahayd qoondada miisaaniyadda qaranka iyo mashaariicda horumarineed ee hakadka ku jira muddo ku dhow sanad si loogu adeego shacabka Soomaaliyeed ama shacabka galmudug oo la daala dhacaya duruufo adag sida colaado iyo abaaro soo noqnoqday. wasiirku waxa uu dhageystay dhammaan tabashooyinka iyo soo jeedinta madaxda kala duwan ee galmudug waxaana uu dib ugu noqday caasimadda Muqdisho si uu la soo tashado madaxda ka sarreysa. waxaase nasiib darro ah iyadoo wada hadalladu ay bilow yihiin in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya oo ka qayb galaya munaasabadda furitaanka kalfadhiga shanaad ee golaha baarlamaanka qaranka uu soo hadal qaaday in doorashada galmudug ay qabsoomayso Julaayo 2019 iyo in munaasabadaasi lagu casuumay gudoomiyihii hore ee baarlamaanka galmudug Cali Gacal Casir taasi oo dhaawacaysa midnimada galmudug iyo
hagaag cabdiweli jaamac ayuu kaasi ahaa oo akhrinayay nuxurka war-saxaafadeedkii kasoo baxay madaxtooyada galmudug oo ay kaga hadlayeen go-aanadii ay labada dhinac isla qaateen waa go-aanadii la isku fahmi waayo wadahadalada labada dhinac. wararka dibadda ayaa goornooda maqli doontaa, laakiin wararka kale gudaha waxaa kaloo kamid a midowda africa waxa ay beeniyeen in ciidanka amisom inay ka baxeen xarumo muhiim ah ay ku leeyihiin soomaaliya. ubax maxamed ayaa faahfaahinaysa. ururka midowda afrika ee ka howlgala soomaaliya ayaa waxa ay beeniyeen inay ciidamada amisom ka baxeen xarumaha qaar ay ku leeyihiin dalka soomaaliya. war-saxaafadeed kasoo baxay midowda afrika ayaa lagu sheegay in muhiimada ugu weyn ay tahay in ciidamadooda ay ku dhaqaaqi doonaan baraha ay ku sugan yihiin ururka al-shabaab. sidoo kale waxay sheegeen in shaqada ugu weyn ee ururka midowda afrika uu ka hayo soomaaliya in ay tahay sidii ay uga caawin lahaayeen dowladda federaalka soomaaliya in ay ka guuleysato ururka al-shabaab, islamarkaana shacabka soomaaliyeed ay ka dulqaadi doonaan xadgudubyada ay kula kacaan ururada ka dagaalama soomaaliya sida baada iyo dilalka joogtada ah. ciidamada amisom kama bixin soomaaliya, laakiin waxaa jira qorsho dib u habeen loogu sameynayo ciidamada si ay shacabka soomaaliyeed u difaacaan. warkan kasoo baxay howlgalka midowda afrika ee amisom ayaa kusoo aadaya xilli dhowaan ciidamo ka tirsan kuwa kenya oo kamid ah amisom ay ka baxeen 4 saldhig oo waaweyn oo ku yaala gobolka Gedo. wasaaradda amniga puntland waxay amaro ka soo saartay ammaanka gobolka bari ee deegaanada puntland. cabdiqaadir jakarta ayaa sii dhammaystiraya. kulan degdeg ah oo maanta magaalada boosaaso ee maamulka puntland ee gobolka bari ay ku yeesheen guddiga amniga maamulka puntland iyo taliyayaasha iyo saraakiisha ciidamada daraawiishta dowladgoboleedka puntland ayaa waxa ay kaga hadleen xaaladda amni ee magaalada boosaaso iyo dalalka maalmihii lasoo dhaaf halkaas ka dhacay. kulanka ayaa waxaa laga soo saaray armaro guud oo ku socda shacabka ku nool magaalada boosaaso iyo saraakiisha amniga magaalada boosaaso ee dowlad goboleedka puntland. wasiirka amniga ee maamulka puntland cabdisamad galan ayaa warbaahinta u sharaxay amarada la xiriira dhanka amniga ee markaas lagu soo rogay shacabka iyo saraakiisha ciidamada puntland ee magaalada boosaaso. maalmo fara badan aanu ka shiraynay oo aanu qorshe iyo ajanda iyo barnaamij aanu la nimaadno magaalada iyo gobolka bari aanu ku diyaarinaynay sidii aanu amniga gobolka iyo magaalada boosaaso gaar ahaan meesha ay joogto meel ka wanaagsan aanu gaarsiin lahayn. hoggaanka iyo xukuumadda ilaa intii ka hoosaysay maanta waxa ay hoosta ka wada xariiqeen dakhliga dalka puntland soo gala iyo maamulka puntland waxa uu inta ugu badan ka yimaadaa magaalada boosaaso. haddaan amnigeeda la wanaagsan dakhliga dalkuna hoos buu u dhacayaa, nolosha dadkuna hoos bay u dhacaysaa. waa go-aan xukuumadeed. idinka haddii aydan marka aydan naga gaabin intay doontaan nagu qaadato dhaqaale intay doontaan nagu kalifto waxaanu diyaar u nahay hawsha iyada ah inaanu si buuxdo oo mugya oo dhammaystiran aan uga wada shaqayno. hal arrin wayga dardaara hadday jiri jirtay cabasho ka timaada bulshada gaar ahaan magaalada boosaaso ay ka cawdaan laamaha amniga gaar ahaan bilayska qaababka looga dhaqmo dad si khaldan mararka qaarkood ay isugu dhacaan. waxaa naga go-aana wasiirkii amniga aniga ah, waxaa naga go-aana qof shacab ah inaan lagu khaldamin lagu xadgudbin, sarkaalkii iyo ciidankii ku xadgudbana inaanu sharciga hoggamin. amaradan kasoo baxay wasiirka amniga ee dowlad goboleedka puntland cabdisamad galan ayaa kusoo aadaya xilli amniga magaalada boosaaso ee gobolka bari bilihii lasoo dhaafay ee mid aada u xun, islamarkaana ay ka dhaceen dilal qorshaysan oo loo geystay dad shacaba iyo saraakiil ka tirsan ciidamada maamulka puntland. markana u diyaar garow wararka soomaalida ka baxsan ayaan eegi doonaa oo caalamka intiisa kale. koox la xiriirta tahriibiyaal ayaa naqday burcadbadeed kadib markii qaab awood ah ay isku dayeen inay ku afduubtaan markab nooca qaada ama xambaaraba shidaalka. ciidamada jasiiradda Malta ayaa gacanta ku dhigay markab ah kan shidaalka xambaara oo ay afduubteen dad tahriibiyaal ah oo badan oo laga soo badbaadiyay qudhooda badda. dadkan oo kor u dhaafayay 100 qof ayaa falkan ku dhaqaaqay kadib markii ay ku wargeliyeen kadib markii lagu wargeliyay dadka tahriibayaasha in dib lagu celin doono dalkii ay ka yimaadeen ee Liibiya ay markii hore ay kasoo tahriibeen.
warar soo baxay ayaa sheegaya in tahriibiyaashan xabsiga loo taxaabay kadib markii markabka uu ku xirtay dekada Malta. ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkaasi Talyaaniga Matteo Salvini ayaa asna tahriibiyaasha ku tilmaamay kuwo burcadbadeed ah. arrintan ayaana imaanaysa iyadoo midowga Yurub uu sheegay in ay joojiyeen gaafureyga ama ilaalinta badda Mediterranean-ka. ra-iisul wasaaraha dalkaasi ayaa maalka asna dhankiisa waxa uu sheegay in sida ay tahay loogu tixgelin doono qawaaniinta caalamiga ah marka ay timaado qaabka loola dhaqmi doono tahriibiyaasha la xirxiray. ciidamada ilaalada xeebaha ee Liibiya weli si rasmi ah maysan uga hadal markabkan ay isku dayeen kooxdan tahriibiyaasha inay afdubtaan. afhayeen u hadlay militariga Malta waxa uu sheegayaa in aysan miro dhalin dadaalada ay ku doonayeen ee ah in ay kula xiriiraan kabtanka markabka siday ee qalabka Malta ee warbaahinta la xiriira ama baahinta labada dhinac ee qalabka ay u adeegsanayaan. mas-uuliyiinta Malta ayaa sidoo kale xaalad kasta waa mas-uuliyiinta Malta ayaa waxay xaalad ku soo rogeen dadka hadda ay xirxireen ee ah kooxdii tahriibiyaasha ahaa. dhinaca kale ra-iisul wasaare ku-xigeenka Talyaaniga ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in aan dadkan isku dayay afduubka in wax ixsaan ah loo sameyn doonin oo ciqaab la marsiin doono. warkii fidimana saaxiibayaal waa dhageyintaas cidda warka uu sheegay waxay ka heli karaan mar kale bartan internetka aan ku leenahay radio risala.com. midnimo